magaalada Berbera ayaa noqonaysa muhiimadda koowaad ee golaha deegaanku ay siiyeen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen waxaana magaalada ay ka dhiseen wadooyin fara badan kuwaasi oo kaaba dhinaca dhaqaalaha ama isgaarsiinta وتلالين وديغو عكوية لا صبوغ دموكتاي بدوين اي مدوداي بيتاي مموكتاي kalena waxa ay sameeyeen dhirayn muddo hadda sanadkii ugu dambeeyay 2018 iyo bilowga 2019 ay u qorsheeyeen in magaalada Berbera ay noqoto magaalo cagaaran oo dhirtu ay ku badan tahay waxa farxad weyn noo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo suurta galiyay saddex qodob waa qodobka koobaad jidkan oo aynu la magac baxnay jidka timirta oo aynu 800 mitir labada dhinacba 1600 mitir aynu ku beeri doono dhirta timirta iyo faraawilkii iyo geedihii noo siyaala waa sanadkii 2019 iyo qorshihiisii oo maanta bilow ah qodobka labaad waxaan aad ugu faraxsanahay uguna mahad celinayaa kuna hambalyeynaya shacbiga reer Berbera oo isu taagay dareen wadaniyadeed oo ay ku nadiifinayaan magaalada kuna bilcoonayaan dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde oo ka hor maayir ka hadlay ayaa isna tilmaamay direentani inay barbar socoto nadiifin iyo waliba laytiskii habeenkii oo dib lagu soo celinayo istiriidiyada magaalada gudaheeda jidkan waa jidkii ugu horeeyay oo lada jidka timirta waxaanu ku beernay konton geed oo iska soo horjeeda 25 geed oo dhinaca ka jeesanaya iyo 25 ka soo horjeesanaya khashaafadihii iyo laydhkiina magaaladii waanu bilowno waa lagu xidhay kuwii ugu horeeyay waa shalayto lagu xidhay magaaladuna way ifaysaa way nuuraysaa inta dowladda hoose ayaa markii ay dhamaatay direentani waxa ay tageen xayndaabyada dhirta la beeray ee magaalada gudaheeda ku yaala kuwaasi oo ay burburiyeen dadkana ay kalsooni ku siiyeen inay dhirtooda si xorriyad ah ay u beertaan waxaanu saaka geedna waynu ku furnay geedna xorriyadiisa baynu soo celinay waxaan xorriyadiisa soo celinay dhirtii xaydaabka ku xidhnayd ee aanu ku yagleelnay magaalada guri kasta oo xaydaabka geedka ku xidhay waxaanu ka furaynaa xaydaabka xorriyadiisa geedka siinayna sidoo kale waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Berbera xarun damdamis oo maamulka golaha deegaanka degmada Berbera ay hirgeliyeen taasoo baahi weyn loo qabay wax badan ka tartay ka hortagii aafada dabka oo xilliyada xagaaga marka ay dabayluhu dhacayaan inta badan la arko meelo uu dab siyaabo kala duwan uga kacay waxaan ku idinayay xaafadda la yiraahdo Farxasheekh dariiqa lambar 2 guriga lambarkiisu 730 holka 8aad waxa ka kacay dab baa ka kacay ma garan xaruntan damdamis oo xaydaab looga sameeyay agagaarka xarunta maamulka dawladda hoose ayaa waxa lagu qalabeeyay gaadiid kala dagaalanka dabka oo casri ah iyadoo shaqaale cusub iyo kuwii hore kamidana loo tababaray qaabka dabka loola dagaalamo iyo qaabka looga hortago
halka indhihiina waxa ku arkayseen baa hoto sharaxaad ku filan waxaan leeyahay maanta waxa ay noo tahay anaga guul waayo sanadkan waxaan u qaadanay waa aqoonta iyo cilmiga wixii aan ku tacabnay waayo gurigu uu burburayaa maxaan ku rahdaa gaariguna uu baaba'ayaa haddii aan laakiin inta baanay aqoon lahayn laakiin aqoontii inaanu ka dhisno oo ka caawino